bini aadamka qaab abuurkiisa waxaa ka mid ah inuu murmo ama iskhilaafo oo ay asal u tahay dabeecaadka bini aadamkee kala gedisan iyo hunguriga adduunye uu qabo oo aan mid quraba dunida tani ku filayn haddii keligii la siiyo dunidaan midka keliya ku filayn haddii 6 milyan oo qof ama 6 bilyan oo qof ay ka dhaxayso waad garan kartaa xuduudda ama hunguriga bini aadamka iyo suu isaga hor imanayo ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa masaa-ishatan muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo dilku inuu basharka asal ku yahay watlu calayhim naba'a bnay aadama id qaraba qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar ilaahay wuxuu ka warramayaa qiso dhan baa laynoo soo guuriyey oo ka mid ah reer nebi aadam asalkoodii ilmo nebi aadam inay isqabteen oo isdileen waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu soo guurinayaa walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk basharku inaanay ka zuulaynin inay iskhilaafaan ama se murmaan cid alla u naxariista mooyaane subxaanahu wa tacaala iyadoo tamaca bini aadamku uu marka hore noocaa u salaysan yahay oo ah runtii nuqadka loogu talagalay in basharka lagu itixaamo ayaa waxaa kaloo haddana ka mid ah oo sii kordhiya marka ay dadku wax wada yeeshaan ee wax isku darsadaan ha noqoto xaas nin iyo gabadh wax isku darsaday ha noqoto shuraako dad adduun iyo xoolo isku darsaday ha noqoto dowladnimo dad dowlad iyo in ka ballaadhan isku darsaday wax la doonayo kasta oo la isku darsadaa iyana waxay abuuraan muranka waana ilaahay subxaanahu wa tacaala tuu qur-aanka ku leeyahay waina kaiira min alkhulaطaa'i layabغi bacduhum calى bacd ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala in badan oo wax isku darsata waa isku xadgudbaan badhba badhka kaley ku xadgudbaan ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waqaliila ma hum kuwa iimaanka laga heliya camalka saalixa mooyaane kuwaasina waa yaryiinba alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waa dad yar inaynu tirtirno wax kasta oo xagasho keenaya bulshada maxaa isku diraya maxaa keensanaya inay isdilaan maxaa keensanaya inay isqabsadaan hadday guri tahay hadday qabiil tahay hadday dowlad tahay hadday mujtamac tahay hadday ka yartahay hadday ka weyntay maxaa keenaya inay isqabtaan maxaase keenaya inay walaaloobaan waxa allaaliya wixii keenaya in la kala tago rabbi wuu nahiyey waa laynaga xaaraam yeelay waxa allaaliya wixii keenaya in la walaaloobana waa layna faray wujuuban aw nadba iyadoo ama waajiba ama sunnaa baa layna faray waxaa layna faray oo laynaga mamnuucay inaynu kala tagno inaynu isdillo inaynu ismaagno inaynu isxamanno inaynu iscayno inaynu isyasno inaynu isfogoyno inaynu naanays isugu yeedhno inaynu kuwaasoo dhan maxaa loo manciyey waa meesha nabarku ka bilaabmo waxaa layna faray inaynu isxidhiidhinno inaynu isa salaanno inaynu isa sooriyeyno inaynu ilaahay dartiisu jeclaanno inaynu isa soo booqanno inaynu waajibaad isku leenay keenna hindhisa inaynu alxamdu lilah markuu yidhaahdo aynu maxay tashmiit ilcaatis u samayno inaynu keenna buka soo booqanno inaynu jinaasadeenna raacno in haddii laynooga yeedho meel aroos ama casuumad inaad walaal ka aqbashid kullu daalika aadaabtaasoo dhammi waxa ay sheegaysaa waa in walaalnimada iyo xidhiidhku bato walaalnimada idan sharcigu marka hore wuxuu ina farayaa wixii walaalnimo xoojinayay waxaysu hadiyeeya baa la yidhi tahaadu waayo taxaabu baa nabigu leeyahay waas jeclaanaysaan waxaa layna leeyahay xuquuqdaasoo dhammi waa xuquuq qof kasta oo muslimi qofka kale muslimkaa uu ku leeyahay haddaynu xuquuqdaa ilaalino macnaheedu waxa weeyaan xidhiidhka inoo dhaxaynayaa tiro badanaya cagsigeeda haddaynu iska reebno
oo ah inaynu isxamanno inaynu iscayno yaa ayuha aladiina aamanuu fii suurati alxujaraat aayaadka tirada badan leh bacda aayaati alqitaal iyo islaaxa ka dambeeya inama almu'minuuna ikhwa marka ilaahay uu soo warramo war daa'ifo muslimiina hadday isdishaan waa dad walaale ee hagaajiya waxa laga dambaysiiyey intaasoo aayadood oo ka warramaya in la isdile maxaa keenaya waxaa keensanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhunna waxaa keensanaya walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waxaa keensanaya laa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta waxaa keensanaya tajasus inaanu jirin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramay walaalaha isdile in la islaaxiyo waxaa laga warramay manhiyaad tiro badan oo ah waxa keensanaya inaynu marka horeba isdillo haddaynan isyasin qofka mu'minkaa shar waxa ugu filan baa la yidhi walaalkiiya u xaqiro uu yaso haddaynan il iyo aftoona isku xamanin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamaya weylu likulli humazatin lumaza qof kastaoo hamaaza oo lumaza waa mid af wax ku caayiya ishaaro iyo mid carabka wax ku caaya waa mamnuuc sukhriyo dhammaanteed jees-jees iyo liide inaad walaalkaa liiddo xamasho namiimnimo iyo isku dirdir jannada ma gala baa la yidhi maxay namaama wqataat nusuustaa tirada badan leh qadfi iyo buhtaan in la sameeyo sibaab lmu'min in lagu tilmaamay inuu yahay maxay fusuuq inuu yahay waxaasoo dhammi waxay sheegayaan muran in la yareeyo waa precautionskii hore waa wixii koowaad ee abuurayay bulshadu inaan xumuhu dhex marin waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ilaahay wuxuu yidhi addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa ha yidhaahdaan weedh kasta ta fiicanoo qura maaha ta sii fiican ha yidhaahdaan waayo maxaa laynoo leeyahay ta sii fiican ha yidhaahdaan haddii walaalkaa markaad la hadlayso kelimaadka aad doorato oo ereyga fiican daayo ereyga ka sii fiican aad isticmaasho waxaa yaraanaya murankiina waayo waxaad noqonaysaa qof walaalkay ixtiraamay ama haddaad ku bilowdo waan jareexaynayaa inaad tidhaahdo sidaa soomaalida jareexada waa maxay waa tajriixi dee haddaad ku bilowdo waan duraya waan ka yaro cadhaysiinayaa hebel oo ama reerkooda aada ceebo ka sheegto ama isaga aada caydo ama aada yesto ama aada maagto ama aada naanaysa ugu yeedho ama aad soomaalidu waxay u moodaa waxaas inuu yahay wax kaftana laakiin kaftan ma aha nebigu wuu kaftami jiray laakiin waxaan xaq ahayn ma odhan jirin bulshada dagaalkeedu haddaan af xumaanin adin ma xumaado asalku waxa weeya wargaaladaa la noosheen maaragteen markay wada dhaqmayaan wax kastoo ka dhaxeeya hadal cid isku mudaysa arki maysid walaalka hadal ku mudda raganimo maaha cid hadal isku mudaysa arki maysid xataa af soomaaliga waxaad moodaa innagu dhaqanka soomaaliga waa dhaqan adag nin soomaaliyeed baa maalin wuxuu igu yidhi waa nin pilot dowladdii soomaaliyeed u dirtay arizona joogay dabeetana meeshii wax lagu dhiganayay buu yidhi oo pilotnimo lagu baranayo ayaan kaatiin yaroo gabadh iyo inan islaan iyo inan ay dhashay haysataanu nimaadna aniga iyo nin kaloo soomaaliya weeyaan buu yidhi oo kaafiga iyo waxbaa laga iibsadaa waa ka iibsanaa markaa inantii iyo islaantan meesha joogaa cadhay liitaan maalintii dambe islaantii iyo dha waxay gu tiri buu yidhi kaale maxaa afkiina lagu yidhaahdaa bay igu tidhi buu yidhi please waxaan idhi buu yidhi kuma jirto afkeegu please ma male waan fekeray buu yidhi wixii aan la odhanay min fadlaki bilixsaanaki waxaas waa carabi buu yidhi waan baadhay af soomaaligiiyo ereyga please ba waan waayey buu yidhi wax la idhaahdo dabeetana waxaan idhi buu yidhi kuma jirtoba markaasee waxay igu tidhi buu yidhi haddaan gartay maxaa idiin diiday dadka kale markuu wax iibsanayo please one cup of tea ayaa la yidhaahdaa idinku koob shaha keen awaamirtana wadaan maxaa idiin diiday inaa kelmad fiican tidhaahdaan yacni ilaa xad nin soomaaliyeed intuu fakero afkiisaba uu ka waayo wax bliis lagu yidhaahdo
jaxarnimada iyo hadalka engegan iyo qallafku halku joogo qallafku raganimo maaha inaad qallafsanaato oo qof adag noqota raganimo maaha saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan waxaad addoommahayga ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hadalka kiisa wanaagsan ha dhahaan ina ashayطaana yanzaqu baynahum ina ashayطaana kaana lilinsaani caduwan mubiina ilaahay wuxuu leeyahay waayo maxaa loo leeyahay hadalka ka fiican ha dhahaan waxaa lagu tacliilinayaa waayo shayطaanku dhexdooda inuu fasaad ridaa buu doonaya inuu isku diraa buu doonaya shayطaanna insaanka cadownimadiisu ay caddahay buu u yahay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idan kelimaadkan adigu aad kaftanka ka dhigayso ayaa ah waxaan dadka mashriq iyo maqribba kala geeyey waxaan kala durkiyey waa qabiilkan aad yasayso ama reerkan aad maagayso ama hadalkan aad qofka ku mudayso ama weedhahan wada adag ayaa waxa qof kala fogeynaya nebigu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ee qofka kale muslimka ah hadal xunna yuu ku odhanni bale wuxuu nebigu gaadhsiiyey in la yidhaahdo wejiga fiicani wejiga bashaashka ahi alwajhi taliq ayaa sadaqa ah baa la yidhi adigoo un afka yaro buurayo caraysan inaad walaalkaa ka hor imani xataa haddaad iskaba cadhaysanta oo walaalka aad la kulanto inaad nawcun min alhashaasha inaad nawcun min basha wahashad ay odhan jireen inaad muujiso wax walaalkaa muujinaya inaad ku faraxsantay inaad kulanteen aanu kaa dareemin inaad cadhaysan tahay iyo inaad dudaysatoona hub iyo waxaa in laysuba qaado ama nabar laysku dhuftana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy laa yushiiru axadukum calaa akhiihi silaax midkiin walaalkiin yuu warankiisa ku fiiqinba nabarkiisa xaggiisa xataa haddaad waran sidato xagga hore ha u qabanin baa la yidhi oo sidaa ha u qaadanin xagga dadka uu fiiqayo uu mudayo waayo in shayطaan kaa fakiyaba uu qof muslima ku dhacaa la arkaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay qadaayaadkan marka aan tilmaamayo dadku way yaraysteen laakiin waa dunuub waaweyn nusuusta qur-aanka iyo xadiidka marka la eego waa kabaa'ir xan iyo namiimnimo iyo yasid iyo sukhriye iyo waa kabaa'ir qur-aanku radiyo nahyiyey waa dunuub waaweyn dunuubtaasi hadday dhallinyarada iyo waayeelka iyo dadka dhexdooda ka baxdo waxaynu noqon karnaa bulsho isu soo hilowda oo aan dhibi dhexdeeda oolin bulsho walaaloobi karta oo aan hadalka isku mudaynin bulsho wadaagi karta nolosha dhammaanteed sidaa ogeed inta aanan islaaxa ka warramin iyo fadligiisa iyo qur-aanka iyo axaadiista ku soo aroray waxaan rabaa inaan idiin tilmaamo war fasaadu daatulbaynku inay xumaataa waxan yaryarba xumeeya dadku inuu walaaloobana afcaasha kooban ee waxisasiinta leh ee ismaamuuska leh ee isa soo dhowaynta leh ee isa salaanka leh ee xidhiidhka samaynaya ayaa keena qofka bini aadamka in qalbigiisu furmo bini aadamku dhagax maaha qulubta bini aadamku wax iska xajaro oo aan caqliga in wax loo sheega mayo ana cawaatiftiisu isbedelin maaha cawaatifta bini aadamku wax fudud baa cadhaysiiya farxiya kiciya jeclaysiiya necbaysiiya qofka soomaaliga waxaad moodaa inaanu insaanka markaa si wanaagsan u fahmin insaanka haddaad si fiican u fahamto waxay keensanaysaa cawaatiftiisa iyo mashaacirta dareemadiisa inaad ilaaliso walaalka haddaad dareenkiisa ilaaliso weligaa walaalba ahaanaysaa bulshadu hadday tiraa wallahi ninkaasi waa nin muxtarama oo dadka macaayo wax weyn weeyaan waa qof aan dadka hadalka ku dhimin waxaad moodaa shirarka markaynu isugu nimaadeen la yidhaahdo ha la hadlo in badan oo inaga mid a hadalkoodu waxa weeyaan uun reer hebel waxaan ku sameeyey maanta ma arkaysa inuu la yidhaahdo saan hadallada ugu mudmudo iyo waxaan sameeyey halkay ka ahaan lahayd inuu isku dayo dadka inuu isu soo hiloobo oo boogaha jira inuu asturo oo wax dhadhabo oo wax hagaajiyo ayuu isna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma ku muday raganimo markaa waxay inoo noqotay inaad ninka kale ka cadhaysiiso raganimo waxay inoo noqotay inaad reerka kale muddo ama maagtid ama ka xanaajisid haddaba islaamka haddiiba ay dhacdo maadaama bini aadam la yahay qof cadhooda la waayi maayo qof sahwiyey la waayi maayo
mid qafla ay ku dhacday la waayi maayo laakiin marka ay taasi dhacdo waxa layna amray haddana wax kale oo khusuumada ilaaliya oo ah inaynu baranno dulqaadka iyo cafwiga iyo saamaxadda inaynu baranno wixii way dhaceen ficlan wuu ku caayay wuu ku maagay waxbuu kaa sheegay ma qasabba inaad response bixisaa maya ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu ammaanay janno carduha asamaawaat walard uciddat lilmuttaqiin yaa rabbi ka waran janno cirka iyo dhulka cardigeedu ballaadhayo loogu talagalay inta ah jannada yaa leh ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa leh muttaqiinta la sheegaya waxa weeyaan waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka jannada tan lihi inay yihiin kuwa cadhadooda qarsan kara ficlan waa lagugu yidhi wax kaa cadhaysiiya ma qasabbaa inaad cadhada ka jawaabtaa ma qasabbaa inaad feertantaa ninnimadu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war ninka xooggaa ma taqaanin ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin ee xooggan shadiidka ah dee waxay yidhaahdeen waa ninka rag markay isgalaan dhulka ku hubsada kaasaa adee ninka xooggan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa maaha ninka xooggane la sheegaya waa ninka markuu cadhoodo naftiisa hayn kara buu nebigu yidhi hanan kara xooggu maaha sida dibiga inaad muruqya kuusnaato oo aad garan yaroo gacbogaaban ku hoosato kaas ma aha wax badan samayn mayso kaasi xoogga dhabtii waxa weeyaan inaad noqoto qof miisaaman oo isagoo cadhaysan erayada afkiisa ka soo baxaya ficilkiisa controli karo caqliga uu isticmaali karo soomaaligu hadduu cadhoodo dhiishiyo dherigaba goortuu jabiye wax walba baabi'iyo ayuu leeyahay meel baan ka dhacaya ninka hana la wada hadashiyo oo maxaa milka dhaca inta leg maxaa keenayay waxay ahayd inaad isxijin karto ninnimadu taasay ahayd waxaa layna faray markaa waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaas kuwa dadka cafiya mararka qaarkood cadhada intaad dibirtaabaad iska tegi kartaa waxaa ka sii qurux badan inaad iska cafidaba waxba aanad dibirsanaanineh ay kaa degto waxaa ka sii khayr badan inaad weliba wanaag u samayso oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofkii xumeeyey wanaag u sameeya idfac bilatii hiya axsan maxaa la yidhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim kii xumaa kugu sameeyey haddaad haddana u abaalguddo oo aad wanaag adigu siiso wuxuu filayey de inaad ka aargudato waayo wuxuu dareensanaa inuu godob ku jiro laakiin haddaad godobtii intaad cafido weliba soo dhawayso o wax siiso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ninkaa iyo adigu waxaa isku noqonaysaan kaannahu waliyun xamiim sadiiqaaga dhow ee aan cid kaa xigtaa jirin ayuu soo baxaya